بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaaw iska kitchen. maanta waxaan idin wadaa video yaroo fudud. waxaan rajeynayaa inaad ka wada heshaan. haddii aad channelka cusub tahay please ha iga hilmaamin inaad subscribe ii saartid. maanta waxaa idin tusi doonaa si aad u sameysan kartid pizza yaroo fudud oo macaan badan oo waqti badan kaa qaadi doonin oo ku cajibi doonto insha allah. daawasho wanaagsan. waxaan diyaarinaynaa cajiinka pizzada. waxaa u baahan tahay 2 bakeeri iyo bar oo bur ah, waxaa kaloo u baahan tahay nus qaando yar cusbo ah, 1 qaando sokor ah, qaando yar oo khamiir ama leebito, 1 qaando weyn oo olive oil ah, iyo 1 bakeeri oo biyo qandac ah. intaasoo insha allah isku cajiimeynaa. makiinada cajiinka isticmaalooya inta gacantaada waa ku cajiimi kartaa. maasha allah cajiin fiican noo soo baxay. wax yar dabooleynaa muddo 1 saac ah si uu soo khamiiro. hadda waxaan diyaarsanaynaa sauska pizzada lagu sameeyo. waxaa u baahan tahay 1 gasac yaanyo ah, 2 xabo toon ah, rubac koob oo kabsar fresh ah, rubac koob biyo ah. intaas isku shiid khalaadada ku shiid. insha allah dabka ku shubeysaa waa karinaynaa. waxaa u baahan tahay 1 qaando maraq digaag ah, 1 qaando yar kumin ama xawaaji dhudhuub. intaas si fiican isku walaaq. dabool xoogaa yaanyada si uu bislaato. wax yar kadib isku day inaa walaaqdid si kaaga dhigin. markii xoogaa ee soo haro gurufka ama qaybta oo yaanyada ay adkaato, qaybtaas u baahan tahay adiga. markay biyaha gursato yaanyadaada waa diyaar. waatanaha saan markay u adkaato yaanyada waa diyaar. suugo maasha allah nagu soo baxda meesha. hadda waxaan ku sameysanaynaa pizzadeena digaaga shawarmada aan ka sameeyay. videogeeda insha allah waa ka daawo kartaan saan u sameeyay shawarmada ayada isticmaalaya. hadda video ma nagu sii dheeraynayo. waxaan soo qaadanaynaa cajiinkii noo khamiira ah. waxaan isku dayaa in 2 qayb oo isku mid ah oo isla eg aan u kala jaro. hal qayb meena dhiganaynaa, hal qayb aan ku shaqaynaynaa. pizzadeena koowaad ka sameysan doonaa insha allah. ila socda. waa fidinaynaa cajiinka. adi iyo balca intaad jeceshahay. haddaa pizza cajiinkeeda buurin rabtid waad ka yarey kartaa fiditaanka. haddii aad khafiif jeceshahayna waa ku badi kartaa. adiga iyo sidaad jeceshahay cajiinka waaya. ani in dhexdhexaadan geynaa oona balac weyneyn oona khafiifna ahayn. haddii meesha ay kaaga dhadhagayso cajiinka bura qaadane si ay kaaga dhigin meesha oo si fiican kugu fidsamo. waa kana diyaar waa fidina intaan rabno
waxaan saarinaynaa warqadda ama xaanshada foornada ah. suugadiina waa tana maasha allah, waa diyaar waaye. ku shubanayna dhexda, kadib waa ku wareejinayna qaandada si ay u wada gaarto dhinacayaasha dhammaan. isku day inay gaarsiisay dhinacayaasha dhammaan dood si fiican. ani suugadiina ka badiyaan jeclahay markastaba. shawarmadii aan soo samaysana waa kanaha, waa diyaar. video shawarmada insha allah wuu ku jiraa channelka, waa kasii fiirsan kartaan. hoos korne waa idin soo saaraa calaamadeeda si aad u fiirsan kartid. waxaan ku darsanaa cananaas. tan waa adiga aad jeceshaa cananaaska waa ku darsan kartaa. inta qudaar aad jeceshaa ku darsan kartaa biidsada. hadda waxaan ku darsanaa insha allah saytuun ama oliva la jarjaray. waxaan keensanaynaa farmaajada la xoqay ama ustigii ama cheeskii sida u taqaanid. intaa jeceshaa ku darsan kartaa asagana. waatana biitsadeena oo noo samaysan. ovenka gashanayna insha allah. waatana ovenkan geline. waxaa u baahan tahay adiga ilaa iyo 30 daqiiqo ama ilaa 20 daqiiqo waxay ku xiran tahay furunka. waatana maasha allah diyaar waa biitsadeena. si fiican isu guduud, si fiican isu bislaatay. diyaar waa maasha allah tabarakallah. waa qado yar oo iska macash ahaan oo ku cuni kartaa. waa alaab maasha allah ah. xaafadaada ku samaysan kartaa. waxaa rabtaa kor ka saari kartaa. ikhtiyaarka adaa iskale. inaba caadi maahan. waxaan rajeynaya inaad video ka wada hesheen dhammaan. haddii aad ka heshay please asxaabtaada la wadaag. intaad jeceshahay la wadaaga ka faa'iidaystaan insha allah. please likeska iyo commentska hoos igu soo qor. waa mahadsantihiin. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.